al-shabaab waxaa dagaal looga qabsaday tuulooyinka hoostaga degmooyinka Baraawe, Buurhakaba, Balcad, Bardaale iyo Afgooye. kadib howlgalkii uu madaxweynaha ku baaqay ciidamada qaranka waxay qaadeen guluf colaadeed waxayna ka sameeyeen horumar. waxaa sidoo kale la qabqabtay qaar badan oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa kaga aadan inay kaga qayb noqdaan dagaalka lagaga soo horjeedo al-shabaab 74 sano kadib aasaaskii SYL? maanta daad ugu badan Soomaalida waa inta ka yar 35 sano, taas oo ka dhigaysa 71% bulshada Soomaaliyeed dad dhalinyaro ah. maleeshiyada al-shabaab markii ugu tirada badneed waxaa lagu sheegay 10,000 inay ahaayeen, hadda oo ay liitaan waa ka yar yihiin. SYL waxaa aasaasay 13 dhalinyaro ah. xilligaas Soomaaliya waxaa ka jiray gumaysi iyo faquuq. Soomaalida gawaarida waxay ka raaci jireen meel gadaale, qaar wabiyada ayaa loogaga talaabi jiray, waxaana ka dhiidhiyay dhalinyaro nala mid ah oo tiro yar. maanta haddaan halbay ka dhigano tirada al-shabaab ee 10,000 ah, mid kasta oo ka mid ah waxa uu argagax ku hayaa 850 dhalinyaro Soomaaliyeed. hadda waa hal al-shabaab ah. qarnigan 20-aad si fudud ayay dhalinyaradu hormuud ugu noqon karaan in laga xoroobo argagixisada. isku duubni iyo kacdoon dhalinyaro ayay bulshada u baahan tahay. waxaad kala ogaataa dawladda Soomaaliya waxay howlgalkan ku qarash gareynaysaa adduun dhan 14 milyan oo dollar, waana markii ugu horeysay oo qorshe noocan ah al-shabaab lagaga hortago. ololahan waxaa la rabaa inuu xubsibto dhalinyarada Soomaaliyeed inay u istaagaan ay u kacaan ay u dhaqaaqaan difaaca dalkooda ay u difaacaan. dhalinyaradiinni meeye diyaar muu tihiin inaad dalkiina difaacdaan? diyaar muu tihiin dalkiina u dhimataan? Soomaaliya dhammaanteen war dhulkeeni hooyo ciidi waa dhawaaqdeen. Soomaaliya dhammaanteen war dhulkeeni hooyo ciidi waa dhawaaqdeen. waxay tiri dhibaatada maygu dhowranaysaan dhalinteedii talin lahayd.